بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxa kamida waa dagaalada ka horcaya wadanka Suudaan oo sii xoogeysanaya iyadoo ciidamada RSF ay gacanta ku dhigeen magaalo istiraatiiji ah Israa'iil oo ugu dambeyn la filayo inay aqbasho in Turkigu qayb ka noqdo ciidamada la filayo in la geeyo Mareyka Gaza kadib cadaadis dhanka diblomaasiyadda oo xoogan laakiin maxay tahay shuruudan Netanyahu uu ku xirayo arrintan waardii faahfaahin doona Imaaraadka Carabta oo qalinka ku duugay heshiis ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa iyo $2 bilyan oo hub uu kaga iibsanayo إسرائيل سيدو كله برنامج كوحد ديكو وهينا מה זה המכון הזה? ממי אתם מקבלים תקציב? מהאיחוד האירופאי? מי מממן את המכון שלך? המוסר מעוות הוא שלך. ואתה מייצר פה שיח של מוות. תומכת ברוצחים. ושיח שמעורר תומכת באנסים של ילדים. רצח. ומי שמייצר השוואה. ودود كسيغتay in gacanta la soo tago oo maanta ka dhacday xarunta baarlamaanka Israa'iil waxay dhaxmartay wasiirka xaq jirka ee amniga qaranka ee Israa'iil iyo haweeney ka socotay urur u dooda xuquuqda aadanaha oo difaacaysa Falastiiniyiinta sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waa dagaal feer iyo faralaab la isku adeegsaday oo ka dhacay baarlamaanka wadanka Turkiga maxaa la isku hayaa waardii faahfaahin doona qodobkaasina caawa waxaynu ku bilaabaynaa colaadda wadanka Suudaan iyadoo dagaaladu ay si xoogeysanayaan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada gurmadka degdega ah galabta ay ku dhawaaqeen in mar kale ay la wareegeen magaalada Al-Uba oo ku taal koonfurta bari ee magaalada Al-Ubayd ee caasimada gobolka waqooyiga Kordofan saacado yar kadib markii ciidamada dawladda Suudaan ay sheegeen in ay magaaladaasi qabsadeen la taliyaha RSF Basha Tabiq ayaa sheegay in Al-Uba oo ku tilmaamay magaalo istiraatiijiya dib loo qabsaday isla markaasna cadaadis cusub la saarayo magaalada Al-Ubayd taasi oo dariiqa u furi doonta gacan ku dhigista magaalooyinka Al-Rahaad iyo Rawaaba isla markaasna xanibaysa wadada isku xirta galbeedka iyo bartamaha dalka Suudaan dhinaca kale ciidamada wadanka Suudaan ila laga helay warar ayaa waxay u sheegeen telefishinka Al Jazeera in ciidamada dawladdu ay horay u qabsadeen magaalada balse qasaare culus ay kala kulmeen dagaalka warar kale ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ay RSF ay beegsadeen deegaanka Dankooj ee waqooyiga ka xiga Al-Ubayd dagaaladan ayaa qayb ka ah iska horimaadyo dhowr maalmood socday waxaana hoos u dhacay weerarada tooska ee labada dhinac halka ay kordheen weerarada diyuuradaha droniska ciidamada Suudaan ayaa sidoo kale duqeeyay dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka galbeed ee Kordofan waxaana la sheegay in gaadiid dagaal la burburiyay isla markaasna la laayay dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan RSF saddexda gobol ee Kordofan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa ka aloosana dagaallo gacmaha la isula tagay oo barakac balaaran sababay dhanka siyaasadda Basha Tabiq la taliyaha RSF ayaa si cad u diiday hindisaha xukuumadda ku meel gaarka ah iyadoo ra'iisul wasaare Kamal Idris oo qodbad ka jeediyay xalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay xabadujin caalamiya hubka dhigista RSF iyo wadahadal ay yeeshaan dadka reer Suudaan dhexdooda Tabiq ayaa ku tilmaamay hindisaha mid ku celinaya hadallo faquuq ah isla markaasna wuxuu sheegay in wax xal ah arrintaasi aysan u ahayn dagaalada socda arrintan oo loo fasirinayo in RSF ay si buuxda u diiday dagaalka inay joojiso وهجاج قرنا وحن أقول بينا ور دقدقة وهذا صار عي ورقبتك هذا وكشقينية ور كان وور علوس وأنا يسوق من دورنا لكن وحن إيجينا هالشيء بلارن أو نحمري
imaaraadka carabta iyo Israa'iil oo in ka badan $2 bilyan lagu kala iibsanayo hub. warbixin uu daabacay warsidaha lagu magacaabo Intelligence Online ee ka hadla arrimaha sirdoonka ee Faransiiska ka soo baxa ayaa daabacay xog xasaasi ah oo ku aadan heshiis qarsoodi ah oo imaaraadka carabta oo la saxiixday shirkadda hubka farsamaysa ee Israa'iil ee Elbit Systems kaas oo qiimihiisu uu ku kacayo $2.3 bilyan. heshiiskan oo bishii hore shirkaddu ay ku dhawaaqday ayaan la sheegin cidda laga iibiyey, laakiin wargeysku wuxuu leeyahay hadda waxaa la ogaaday in uu yahay waddanka imaaraadka carabta dalka iibsaday hubkaasi. Elbit Systems ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara nidaamka qalabka difaaca casriga ah ee Israa'iil, waxaana lagu sheegay in imaaraadka ay ka iibsadeen nooc horumarsan oo ka mid ah nidaamyada difaaca dayuuradaha ee JMUSIC kaas oo loo adeegsado nidaamka laysarka si uu carqaladeeyo gantaalada cirka ku jira. qalabkan ayaa qayb ahaan lagu soo saari doonaa gudaha imaaraadka iyadoo mashruucan uu ka helay ogolaansho xukuumadda Israa'iil. heshiiskan wuxuu soconayaa ilaa 8 sano, waxaana loo arkaa kii labaad ee ugu weynaa taariikhda hubka ee Israa'iil. qaar badan oo ka mid ah ayaa la qariyey faahfaahinta heshiiskan. hay-adaha u dooda arrimaha xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay Amnesty International iyo hay-adda samafalka Oxfam ayaa dhaliilay arrintan iyagoo ka digay khatar ku wajahan shacabka. imaaraadka ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa inuu taageero siiyo kooxda hubaysan ee RSF ee Suudaan, laakiin Abu Dhabi arrintaasi geeska ayay gelisaa. sidoo kale shirkadaha difaaca Israa'iil ayaa imaaraadka si firfircoon uga shaqaynayay tan iyo markii la gaaray waxa loogu yeero heshiiskii Abraham ee 2020. heshiiskan ayaa imaanaya xilli weli dibadhac uu ku jiro qorshaha imaaraadka ee diyuuradaha F-35 ee Mareykanka, iyadoo Israa'iilna ay diyaar u tahay in imaaraadka ay siiso inta hub ay u baahan yahay si uu xoojiyo saameyntiisa gobolka. diyaarad uu saarnaa taliyaha ciidamada waddanka Liibiya ee dowladda caalamku u aqoonsan yahay in la waayey diyaaraddaasi xogtii dhanka diyaaradda iyo raadaarka. General Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad ayaa waxa uu ka duulay magaalada Ankara wuxuuna ku sii jeeday magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. intii uusan soo dhoofin goorsii horreysay maanta waxa uu la kulmay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga Yasir Guler, waxaana lagu soo waramaya in laga wada hadlayay arrimaha la xiriira xiriirka labada dhinac. waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo shalay baarlamaanka waddanka Turkiga uu ansixiyey 2 sano oo dheeraad ah howlgalka ciidamada Turkiga ee waddanka Liibiya in lagu daray. waxaa lagu soo waramayaa diyaaradda inay saarnaayeen 4 qof oo kale sida uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Ali Yarlikaya. waxaana lagu soo waramayaa in la xiray hawada magaalada Ankara oo gebi ahaanba la joojiyey dayuuradihii. waxaana soo baxaya warar sheegaya in la aaminsan yahay diyaaraddu in ay dhacday. macluumaad dheeraad ah lagama hayo ilaa hadda, laakiin waxaa la sheegayaa in diyaaraddan markaasi ay isku dayeysay inay u leexato dhanka garoonka dayuuradaha ee lagu magacaabo Izanbuga ee ku yaala magaalada Ankara ee waddanka Turkiga. war baa ka soo kordhay dayuuraddii siday taliyaha ciidanka waddankaasi Liibiya ee dowladda caalamka aqoonsan yahay. generaalkani ma ahan General Khalifa Haftar. Khalifa Haftar wuxuu hogaamiyaa ciidanka la yiraahdo LNA. isagu wuxuu haystaa ciidamada dhanka bariga Benghazi iyo dhinacaas. dowladdaas caalamka ma aqoonsana, laakiin dowladdan Tripoli waa dowladda caalamka aqoonsan yahay, waa dowladda Turkiga uu taageeray kadib markii imaaraadka iyo dhinacyo kale ay taageereen General Khalifa Haftar oo isku dayay inuu qabsado caasimadda Tripoli. laakiin Turkiga ayaa u gurmaday oo gacan siiyeen. ninkan wuxuu ahaa ninka ka hortagay Khalifa Haftar isaga iyo jeneraalo kale. haddaba hadda waxaa soo baxaya war sheegaya in diyaaraddu ay soo dhacday, waxaana la helay burburkii diyaaradda. sawiradan waa sawirada ugu dambeeya, waxaana hadda warbaahinta Turkiga sida telefishinka la yiraahdo NDTV ay tabinayaan in diyaaradda
markii ay kacday la sheegay in ay cilad gashay kadibna la dabacay in loo leexiyo garoonka diyaaradaha ee ugu dhawaa diyaaradda waxa la sheegay inay ku dhacday deegaanka la yiraahdo Haymana oo ku yaal magaalada Istanbul magaalada Ankara raalli ahaada ee caasimadda waddanka Turkiga warkan intaynu barnaamijka ku jirnay ayuu soo dhacay sawirradana ayna soo gaareen wixii soo kordha baan idila socodsiinayna insha Allah tacaala waa hagaag waxaan kaloo eegaynaa war kale oo degdeg ah oo hadda soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay telefishinka kanaal 13 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu tibinayaa in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kulanka uu la yeelan doono Donald Trump dabayaaqada bishan in uu ka dalban doono ogolaansho buuxa oo ah in weerar buuxa oo dhammaystiran lagu qaado ururka Hezbollah warkan hadda ayuu soo dhacay wixii faahfaahin waynu arki doonaa waa tahay isla arrimahan intayna ka bixin Israa'iil waxay aad u diidanayd in Turkiga qayb ka noqdo ciidamada la geenayo Mareykanka Gaza laakiin Donald Trump ku adkaystay dhinaca kale cadaadis weyn baa la saarayaa Israa'iil haddaba maxaa cusub soo kordhay iyadoo dhexdhexaadiyaashu dadaal ugu jiraan marxaladda labaad ee dagaalka Mareykanka Gaza lagu soo afjarayo warbaahinta Israa'iil waxay caawa sheegaysaa inay u muuqato Israa'iil inay aqbalayso door Turkiga ku yeesho arrimaha Gaza laakiin kaliya haddii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu sameeyo shuruudaha Netanyahu uu dalbanayo wargeyska Maarif ee ka soo baxa Israa'iil ayaa wuxuu daabacay goor dhaweyto in laga yaabo Israa'iil inay ogolaato ka qaybgalka ciidamada Turkiga ee Mareykanka Gaza iyadoo cadaadis xooggan la saarayo Israa'iil waxaana la sheegayaa arrintan in si weyn loogu lafaguri doono kulanka dhexmari doona Netanyahu iyo Donald Trump warbixintu waxay sheegtay in Turkiga iyo Qatar ay si xooggan u riixayaan Israa'iil inay aqbasho Turkiga inuu qayb ka noqdo ciidamadan caalamiga inkastoo arrintaasi xasaasi ay ku tahay Israa'iil haddana saraakiil Israa'iiliin ayaa waxay sheegeen in ogolaanshaha Turkiga loo fasiran karo qadcas oo la jibiyey maadaama Israa'iil muddo dheer ay ka soo horjeeday joogitaanka ciidamada Turkiga oo yimaada Mareykanka Gaza sidoo kale waxaa la sheegay inay jiraan caqabado badan oo ku saabsan dhismaha ciidan dhaba oo caalami ah iyadoo dawlado badan iminka aysan arrintaasi u guuxayn haddaba shuruudda maxay tahay Netanyahu uu dalbanaya waxa la leeyahay waxa kamid ah in Erdogan uu ka laabto hadallada had iyo goor uu ku dhariiro Netanyahu ee ah inuu yahay naaziga Jarmalka oo cusub iyo in uu yareeyo hadallada ka dhanka Israa'iil ee had iyo goor uu jeediyo lama oga in Erdogan uu aqbali doono shuruudahaas iyo in kale waa hagaag qodobkaas halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa sheekadii ugu dambeysay oo aan idinkugu hayno feer ardadiiqaha la iskaga dhigay baarlamaanka waddanka Turkiga laakiin markan waxaynu eegaynaa baarlamaanka Israa'iil oo feer lagu sigtay inuu dhaco haddaba maxaa dhacay baarlamaanka Israa'iil gudahoosaadka amniga ayaa waxay lahaayeen dood waxaa laga hadlayay qaanuun uu dhabarka ka riixayo wasiirka mayalka adag ee amniga qaranka ee Israa'iil Itamar Ben-Gvir wuxuuna ku saabsan yahay in maxaabiista Falastiiniyiinta la dilo ama toogasho lagu xukumo gaar ahaan kuwa dalalka ka geysta gudaha Israa'iil iyo sidoo kale kuwa ka qayb qaatay weerarkii 7 Oktoobar haddaba intaan sheekada idin dhameystirin barorta muuqaalkan aynu daawan האיחוד האירופאי תומכת חמאס תומכת חמאס תומכת חמאס את תומכת עד והמחול שלך כמה כסף אתם מקבלים על זה כמה כסף אתם מקבלים על זה תומכת חמאס אתה הורשעת בטרור אתה הופך את כל אזרחי מדינת ישראל לתומכים בהוצאה להורג תומכת חמאס החוצה בבקשה לכי מכאן את לא רצויה כאן אני מאוד רצויה, אתה לא רצוי. את לא רצויה, הנה, מוציאים אותה. תודה. orod naga bax waa ka dhacday meeshii haddaba sheekadan waxay ku saabsan tahay wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa dood adag iyo waliba qaylo wuxuu la galay agaasimaha urur u dooda xuquuqda aadanaha intii lagu jiray dood ka dhacday aqalka baarlamaanka Israa'iil maanta qaanuun uu soo dhabarka ka riixayo Ben-Gvir ayaa waxa lagu doonayaa in dil lagu fuliyo maxaabiista Falastiiniyiinta gaar ahaan kuwii ka qayb qaatay weerarkii 7 Oktoobar iyo waliba kuwa kale ee daanta galbeed ka fuliya weerarada ka dhanka Israa'iiliyiinta gabadha lagu magacaabo Inat Ovadia oo ka tirsan ururka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Zulat ayaa
waxay ka hortimid hindisahan waxaana ay sheegtay in dunida ay u jihaysatay in la yareeyo ciqaabta dilka laakiin intii doodda ay waday oo ay la doodaysay Bangafir ayaa xanaaqay wuxuuna ku yiri haweeneydaasi dadka wax dilaya ayaad ka mid tahay Xamaas baa lacag ku siisa waa akhlaaq xun tahay nooga bax baarlamaanka laakiin doodii baa sii adkaatay iyaduna waxay leedahay dilaba tahay argagixisada baa tahay indhahay faraha ka gelisay ilaa markii daba gabadh intii loogu yeeray ciidamada ammaanka la yiri banaanka loo saaro hagaag doodaha baarlamaanku intaas kuma eka xagga Turkiga eegayna oo tan gacanta la iskula tegine taas gacanta la iskula tegay barta muuqaalkan aynu daawan وهيك baarlamaanka dalka Turkiga ayaa muddo daqiiqadaha waxa la sheegay in la isku qabsaday miisaaniyadda iyadoo markaana gacan ka hadal u dhexmaray xisbiyada mucaaradka xildhibaanada ka tirsan gaar ahaan xisbiga talada haya ee AK Party ee madaxweyne Erdogan iyo xisbiga mucaaradka ee CHP xildhibaanada ayaa waxa la sheegay in markii hore madax la isku saaray laakiin arintii way ka sii dartay kadibna feer ayaa dhacay oo kala qabto iyo waxa dhacday iyo waliba kala jiida waxaana la sheegay in inta badan aysan wax weyn oo qasaara dhicin marka laga tago dhowr feer oo la isla khasiyay laakiin waa la kala qabtay ciidamada ammaankuna waa ay soo galeen waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo